السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta joogaan. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaan waxaan leeyahay soo noqosho wanaagsan inagoo kala maqnayn muddo dheer. maxay ahayd aad baan u mahad celinayaa dadka ii saaray subscribe-ka iyo like anigoo maqan. maxay ahayd waxaan idin leeyahay shukran oo ku mahadsantihiin. intaa ka bacdi waxaan ka hadlayaa dowladda Soomaaliya. dowladda Soomaaliya horta dadkii qaylinayay markii dowladdii hore jirtay oo sistamka dowladnimo ku shaqeynaysay iyo nidaamka dadkii qaylinayay laga fadhiyi waayay waxay maanta maxay ahayd way heleen waxay doonayeen maanta haystaan. waxa ay doonayeen wuxuu ahaa inaan sistem dowladeed dhalan iyo nidaam iyo sharci la maro aanu dhalanin oo waddanku uu noqdo foodo, dadka qabiil lagu baacsado oo maxay ahayd qabiil lagu shaqaalaysiiyo oo qabiil lagu dilo si kastaba mataqaanaa waddanku noqdo foodo oo qabiil lagu dhaco. maanta way taagan tahay wata maanta midhahay beerteen waa kuwa haya. markii laga tuuro farmaajo waxa la islaa sistem dowladeed yaanu dhalanin waana siday doonayeen. waata maanta ciidamada la laayay la baabiiyey si aan dowladnimo u dhalanin. maxay ahayd dadkii loo leynayo la dhacayo lagu shaqaalaysiinayo qabiil. xasan sheekhna waa magaciyaal meesha waa la keensaday. marka dadka waddanka foodada ka wada magaalada muqdisho ka wada foodada iyo dhibaatada waa dadkii keensaday oo sidaa doonayay sidaa. marka maxay ahayd waxaynu arkaynay dhalinyaradii 17 jirada ahayd oo la ciyaarisay xalay Jazaa'ir. inay yarba ku jiray doorkii la ciyaareen Suudaan cabdi xafiid cabdi la yiraahdo goolasha u dhalinayay. waxaan arkaa qabiil in lagu raabay wiilkaas yar kuwa kala ciyaarayo aanan garanayn dib mataqaan laga soo ururiyay laga keenay. dhalinyaradii bariga ciyaarayay wax yarba kaga jiraan Axmed iyo laba magac kaga jira. marka dowladuna waa noocaas oo kale sidaasaan aqoon loogu maxay ahayd lagu shaqaalaysiinay. wasiir baa la soo saariyay halkaas agana leeyahay wasiirka caafimaadka oo su'aal marka la weydiiyo wuxuu ka hadlayo aan garanayn jawaab bixin kari waayay. waxaan doon la sheegay isagoo leh maxay ahayd xiriir wanaagsan ma la leeyahay Hindiya oo wasiirka arrimaha dibadda isagu maxay xiriirkii arrimaha geliyay. xiriirka Hindiya la leeyahay ka dhaxeeya muxuu yahay arrin lala yaabay runtii. marka dowladnimo ma jirto waxaan rajaynaynaa inay khad ka bixi doonaan dadkaas bir dhow oo dad wax garanaya iman doonaan. kulley weliga laga quusan maayo dowladnimo inkastay wanaagsanaan leed magaalada muqdisho in laga wareejiyo magaalo madaxda mar haddii dhaqankeedu nooca yahay oo markasta ay tahay meel xoog lagu haysto. intaasaan ka waranaya. waxaan ka hadlayaa kale dagaalka magaalada Laascaanood ka socda. dagaalka magaalada Laascaanood ka socda waxaan leeyahay dadkaas reer Laascaanood oo guryahoodii joogay magaaladoodii ciidamada la soo dul fadhiisiyay habeenii maalin garaacaya oo guryaha duminaya. ilaahay kaga baqa oo ka dulqaada dadka ciidanka ummad islaam miyadan ahayn. muuse diiday sheeko ma noqonayso wax la dhegeysan karana maaha. maxay ahayd in shakhsi gardaran lagu eego oo dulmi ku soconaya ummad islaameed inuu burburiyo laayo habeenii maalin oo guryaha islaameed gawda ku hayo oo la seexan waayo oo la fadhiyi waayo oo laga qaxay oo dadkii dhir fadhiyaan iyo dhulcidla. ilaahay kaga cabsado ka qabta oo dhiigga daadanaya hala joojiyo ummadda islaameed isku dhamaanaysa. maxay ahayd waxay la tahay idinku inaad fadhiyaysaan halkaa meel nabadgelyo. ilaahay isaga xaq sooro arka intaan la idin khasifin oo dhulka la idinku rogin dhiigga islaamka la joojiyo dadka laga qabto khaladka ku soconaya oo reeraha laga dulkaco. meesha doonaysaan fadhiisto oo kale maxaa Laascaanood dul dhiga naga taga hadday yiraahdeen ka taga dowladnimada ku helimaysaan hore nagu weyday. ilaahay ka baqa waan leeyahay oo dulmiga hala joojiyo dhiigga islaamkana hala joojiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.